fayraska safmarka ah ee corona ayaa si weyn u saameeyay dhaqaalaha dunida waxaana walaac weyn arrintan ka muujiyay hay-adda lacagta adduunka ee IMF. Christina Georgieva ayaa sheegtay in dunidu wajahayso dhiladii ugu darnayd ee dhaqaale xumo tan iyo masiibadii weyneed ee 1930 waxay saadaysay in kaliya soo kabasho yari ay muuqato sanadka 2021 hadii la gaaro. Bandowiyada ay soo rogeen dawladaha caalamka ayaa ku qasbay shirkado badan inay xidhmaan ganacsigoodana ay hawada ka saaraan isla mar ahaantaana sameeyaan shaqaale dhimid. Toddobaadkan horaantiisii daraasad ay sameysay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in 180% shaqaalaha adduunka ay 3.3 bilyan oo qof shaqooyinkoodii si buuxda u xidhmi doonaan sababo la xiriira saradan darteed. Suuqyada cusub ee wadamada soo koraya ayaa ah kuwa ay haleeshay dhibaatada ugu daran sida ay sheegtay iyagoo u baahan bay tiri 100 bilyan oo dollar oo kaalmo shisheeye ah. dhanka kale hay'adda samafalka ee fadhigeedu yahay UK ayaa ka digtay in kala bar dadka adduunka ku nool ee bilyamaadka ahi ay kolka fayraskan dhamaado ku noolaan doonaan xaalad macluula. Khamiistii wada hadallo ay yeesheen hogaamiyaasha midowga Yurub waxay ku heshiiyeen 500 oo bilyan oo euro oo ah xidhmo taageero dhaqaalaha oo lagu talagalay xubnaha dalalka hay'adda ka tirsan ee bandowgu saameeyay. Horaantii toddobaadkan ururka caalamiga ah ee shaqaalaha ILO oo ah hay'ad qaramada midoobay ka tirsan ayaa ka digay in safmarkan dhalanayo busaaradii ugu darnayd tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka waxaana ay sheegeen in cudurkan dilaacay la filayo inuu tirtiro 6.7% saacadaha shaqada adduunka oo dhan inta lagu jiro rubuca labaad ee 2020 oo u dhiganta 195 milyan oo shaqo maalmeed buuxda ahaa oo shaqaalahooda lumiyay.